nabadgelyo korkaaga ha ahaato ku soo dhawow barashada xisaabta daawade magacaygu waa Shiine Geestiir waxaan caaw fiidiyoon gaaban ku baranaynaa xisaabta loo yaqaano trigonometry waa laan ka mid ah laamaha xisaabta taasoo falanqeysa xiriirka ka dhaxeeya dhinacyada iyo xaglaha saddex xaglada tusaale ahaan waxaa loo isticmaalaa markii lagu siiyo cabirka dhinacyada oo aad raadinaysid xaglaha iyo markii lagu siiyo cabirka hal dhinac iyo hal xagal oo aad raadinaysid dhinac ka mid ah dhinacyada saddex xagalka daawade haddii aad tahay arday ku guda jira barashada xisaabta trigonometry-ga waxaa runtii lagaaga baahan yahay oo muhiim ah inaad taqaanid magacyada dhinacyada saddex xagalka leh xagasha quman waa inaad magacyadan taqaanid halkani waxaa inooga muuqda saddex xagalkii lahaa xagasha quman xagasha qumani cabirkeedu waa 90 degree dhinaca ka soo horjeeda xagasha quman waxaa luqadeena hooyo lagu yiraahdaa shakaal waxaana luqada Englishka lagu yiraahdaa hypotenuse waxaana la siiyaa markii aad baranaysid xisaabta trigonometry-ga xarafka h dabcan saddex xagalkani wuxuu leeyahay laba xaglood oo kale oo loo yaqaano xagal fiiqan luqada Englishkana waxaa lagu yiraahdaa acute angle xagashani dhinaca ka soo horjeeda waxaa la yiraahdaa opposite waxaa la siiyaa xarafka o luqadeena hooyo waxaa lagu yiraahdaa lid xagashani dhinaca dariska la ah waxaa la yiraahdaa adjacent waxaa la siiyaa xarafka a waxaa luqadeena hooyo lagu yiraahdaa daris aan su'aal ku weydiiye xagashana dariskeedu waa kee dhinaca dariska la ah waa dhinacan ayaa la dhihi waa dhinacii adjacentiga u ah xagashan dhinacana waa dhinaca opposite-ka u ah xagashan daawade intaas inaan isla fahanno runtii waa laga maarmaan waxaan u guda gelaynaa oo aan wax yar falanqeynaynaa qaacidooyinka xisaabta trigonometry-ga qaacidooyinka xisaabta trigonometry-gu waa saddex qaacido sin waxaa lagu helaa opposite-ka dhinaca lidka ah oo loo qaybiyey hypotenuse-ka dhinaca ugu dheer ee loo yaqaano shakaalka cosine waxaa lagu helaa adjacentiga dhinaca dariska la ah xagasha oo loo qaybiyey hypotenuse-ka dhinaca ugu dheer ee lagu yiraahdo af Soomaaliga shakaalka tangentina waxaa lagu helaa opposite-ka dhinaca lidka ah oo loo qaybiyey adjacentiga dhinaca dariska ah intaanan daawada tusaalayaasheena u guda gelin waxaan rabaa oo kale inaan wax yar isdul istaago mid walba iyo wax yar oo falanqeyn ah sin waxaan dhahnay waxaa lagu helaa opposite-ka oo loo qaybiyey hypotenuse-ka tusaale ahaan xagashan ayaa waxaa lagu siiyey lambar baa lagu siiyey waxaa lagu yiri waxaa soo heshaa dhinacan ka soo horjeeda waxaa kaloo lagu siiyey dhinaca ugu dheer ee hypotenuse-ka ah waxaa lagu siiyey lambar markaasaa waxaad odhani waxaan haystaa xagashan waxaa la ii diray dhinacii ka soo horjeeday dhinaca ka soo horjeeda waxaa la yiraahdaa opposite waxaan kaloo haystaa hypotenuse-ka ee qaacidadeen isticmaalaa markaasaa isweydiinaysaa qaacidada aad isticmaalaysid markaasaa waxaad odhani saddexdan qaacido mideebaa kulansatay opposite iyo hypotenuse markaasaa waxaad odhani sin ayaa waxaa lagu helaa opposite-ka oo loo qaybiyey hypotenuse-ka markaa sin ayaad isticmaalay cosine waxaa lagu helaa adjacentiga oo loo qaybiyey hypotenuse tusaale ahaan xaggan ayaa waxaa lagu siiyey lambar waxaa lagu yiraahday waxaa soo heshaa adjacentigi haye waxaana ku siiyey lambar kale oo waxaa lagu siiyey hypotenuse-ka ah ayaa lagu siiyey markaasaa waxaad dhihi waxaa la isiiyey xagal waxaa la ii diray xagasha dariskeeda
oo ah adjacent oo la siiyo a haye waxaan kaloo haystaa hypotenuse-ka ayaan waxaan haystaa number markaasaa waxaad dhihi saddexdii qaacido mideebaa kulansatay adjacent iyo hypotenuse markaasaa waxaad orani cosine ayaa waxay kulansatay adjacent loo qaybiyey hypotenuse marka cosine ayaad isticmaali ta saddexaad ayaa waxaad orani waxaa la isiiyey xagashan number haye waxaa la ii diray dhinaca kasoo horjeeda xagasha waxaa kaloo la isiiyey cabirka xagasha dariskeeda ah number baa la isiiyey haye xagasha dariskeeda ayaa number la isiiyey cabir ah markaasaa waxaad dhihi xagasha dariskeeda waxaan haystaa number waxaa la ii diray dhinaca kasoo horjeeda xagasha oo ah opposite waxaan haystaa opposite iyo waxaan haystaa adjacentie midee baan isticmaalaa saddexdii qaacido markaasaad dhihi tangent ayaa waxay kulansatay oo lagu helaa opposite-ka oo loo qaybiyey adjacentiga daawade intaasna waa muhiim waxaan u gudagelaynaa marka oo wax badan kasii faa'iideynaa tusaalayaasheena tusaalaha koowaad waxaana la yidhi fine x marka waxaa la yidhi fine x waa dhinacan ayaa la yidhaha soo hel kow waxaad dhihi marka waxaan haystaa xagal 30 degree ah waxaa la ii diray xagasha kasoo horjeedkeeda waxaa la yidhaahdaa opposite waxaan kaloo haystaa xagasha waxaan kaloo haystaa dhinaca ugu dheer oo la yidhaahdo hypotenuse haye waxaan haystaa marka opposite iyo hypotenuse ee saddexdii qaacido mideebaa lagu helaa opposite-ka iyo hypotenuse-ka markaas saddexdii qaacidaa soo fiirini sin waxaa lagu helaa opposite-ka oo loo qaybiyo hypotenuse markaasaa waxaad dhihi marka sin ayaan isticmaalayaa sin waxaa lagu helaa opposite-ka oo loo qaybiyey hypotenuse haye sin marka oo 30 degree ah waxay la mid tahay x oo dhinaca aan raadinayna ah oo u taagan opposite-kii oo loo qaybiyey hypotenuse oon haysano 25 halkaa markaad joogtid waxaad xalinaysaa xisaabtan loo yaqaano aljabrada qaybteeda equationka waxaad orani marka dhan walba waxaan ku dhufanayaa 25 dhinacan 25 baan ku dhufan dhinacanna 25kan ayaan ku dhufani markaasaad 25kan iyo 25kan isku gooni markaasaa waxaad oran 25 lagu dhuftay sin 30 degree waxay la mid tahay x 25 lagu dhuftay sin 30 degree waxay la mid tahay x markaas ayaad calculatorkaaga isticmaalaysaa 25 lagu dhuftay sin 25 lagu dhuftay baan dhahaynaa 25 lagu dhuftay sin 30 degree waa imisa waa 12.5 centimeter x markaa waxaad dhihi x waxay la mid tahay 12.5 centimeter waxaad fiirinaysaa marka koowaad xagashaan haysto waxaa lii diray dhinacii kasoo horjeeday waa opposite waxaan haystaa dhinaca ugu dheer oo hypotenuse marka opposite iyo hypotenuse baan haystaaye saddexda qaacido midee baan isticmaalaa markaasaad dhihi sin ayaa waxay kulansatay oo lagu helaa opposite-ka oo loo qaybiya hypotenuse-ka markaasaad isticmaalaysaa qaacidada sin waxaan u gudbaynaa tusaalaheena labaad annagoo waqtigeena ka faa'iidaysanaynaa waxaana la yidhaahday fine x okay waa ka x waa dhinacan baan ii diray xagal 35 degree waa la isiiyey soo maa waxaad dhihi waxaa la ii diray xagasha dariskeeda adjacent baa la ii diray waxaan haystaa oo kale dhinaca ugu dheer oo ah hypotenuse 25 centimeter adjacent iyo hypotenuse ayaan haystaaye qaacidadeen isticmaalaa saddexdii qaacidaad u imaani marka saddexdii qaacida markaa u timaadid waxaad orani sin waxaa lagu helaa opposite-ka oo loo qaybiya hypotenuse uma baahni cosine waxaa lagu helaa adjacent loo qaybiyey hypotenuse markaasaad dhihi waxaan haystay oo la ii diray marka hore adjacent hypotenuse waan haystay
marka cosine ayaan isticmaalayaa. haye markaasaa waxaad orani cosine waxaa lagu helaa adjacent oo usoo gaabiyey oo loo qaybiyey hypotenuse. haye cosine 35 degree waxay la mid tahay adjacent oo noogu taagan x-ka oo loo qaybiyey 25 oo noogu taagan hypotenuse-ka. markay halkaa joogtay daawade waxaan idhaahday xisaabtani waa xisaab ah algebra oo ah qaybteeda equationka. waxaa sameynaysaa 25 kan ayaad dhan walba ku dhufanaysaa. dhankan 25 maad ku dhufan, dhankanna 25 ayaad ku dhufan. 25 kan iyo 25 kan wuu isla baxayaa. waxaad oran markaa 25 lagu dhuftay cosine oo 35 degree ah waxay la mid tahay x. 25 lagu dhuftay cosine 35 degree ah waxay la mid tahay x. marka halkaa joogtid ayaa waxaad isku dhufan 25 iyo cosine saad usoo heshid x. calculatorkaaga soo qaadan marka 25 lagu dhuftay cosine 35 degree waa imsa waa 20.47 centimeter. x marka waxay la mid tahay 20.47 centimeter. taasina waxay ahayd qaacidada cosine marka la isticmaalayo. waxaan u gudbaynaa tusaalaheena saddexaad. waxaana la yiraahday find x. haye waayahay x waa dhinacan, waa kasoo horjeedka ama lidka xagasha la isiiyey ee ah 37 degree. marka waa opposite. haye opposite halkaa igu qor. haye maxaa kaloo haystaa dhinacee haystaa? waxaan haystaa xagasha dhinaca deriska la ah oo maxay dhinacaas waa adjacent a baan siiyey. haye 37 degree baan haystaa halkane. opposite-ka xagashana waa la ii diree adjacentina waan haystaaye saddexdii qaacido midaan isticmaalaa. haye opposite iyo adjacent baan haystaa. ee opposite iyo adjacent qaacidee baa kulansatay oo lagu helaa opposite iyo adjacentiga oo la isku qaybiyey. markaasaad aadi saddexdii qaacido aad u imaani. waa kuwa saddexdii qaacido. sin waxaa lagu helaa opposite-ka oo loo qaybiyey hypotenuse uma baahni. haye cosine waxaa lagu helaa adjacentiga oo loo qaybiyey hypotenuse uma baahni. tangent ayaa waxaa lagu helaa opposite loo qaybiyey adjacent. tan ayaan u baahanahay marka tangent ayaan isticmaalayaa. waxaan oranayaa marka tangent waxaa lagu helaa adjacent loo qaybiyey opposite. maya waxay ahayd tangent waxaa lagu helaa waxaan dhahaynaa raali ahaada qaacidadii ayaan khalday. tangent waxaa lagu helaa opposite-ka oo loo qaybiyey adjacentiga. marka waxaan dhahaynaa tangent oo ah 37 degree waxay la mid tahay opposite oo loo qaybiyey adjacent oo ah 10 centimeter. opposite-ka waxay noogu taagan tahay x-kii. x ayaan ka dhiganaa marka. halkaa markaad joogtid ayaa daawada waxaad sameynaysaa dhan walba ayaa waxaad ku dhufanaysaa 10 kan saan u xalino xisaabtan algebrada ah. 10 kan iyo 10 kanna waa isla duulayaan. 10 lagu dhuftay tangent 37 degree waxay la mid tahay x. 10 lagu dhuftay tangent 37 degree waxay la mid tahay x. haye marka halkaa joogtid saad x usoo heshid labadan isku dhufo adigoo isticmaalaya calculatorkaaga. 10 lagu dhuftay tangent 37 degree waa imisa
waa 7.5 x marka waxay la mid tahay 7.5 centimeter waa ka x waxay la mid tahay 7.5 centimeter daawade xisaabtani waa xisaab runtii aad iyo aad u fudud haddii aad fahantid saddexdan qaacido marka la isticmaalayo adigoo u fiirinaya dhinaca aad haysatid iyo dhinaca aad raadinaysid magacooda ayaad dusha ka qabanaysaa markaasaad fiirinaysaa saddexda qaacido iyo labada magac aad haysatid midda lagu isticmaalayo waxaan rajeynayaa inuu videogan gaabani ka anfacay mawduucan caawa ka hadlayno inta aan videoga la midka ahaan ku kulmi doonana waxaan idin dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh